dowladda Ingiriiska ayaa deeqdii waxbarasho ee Chevening iyo dalku-galkiiba kala noqotay Cabdiqani Xasan oo u dhashay beesha Dhulbahante. Cabdiqani oo la dhan uga yimid dagaalka jabhadda SSC kula jirta Somaliland ayaa loo diiday inuu dib ugu noqdo dalkii uu ka yimi ee Ingiriiska. Maxkamadda ayaana la horgeyn doonaa, waxaana lagu eedeeyay inuu ka tallaabsaday qaynuunkii iyo shuruudihii deeqda waxbarasho oo uu ku xadgudbay. Cabdiqani waxa uu ku guulaystay deeq waxbarasho oo Ingiriisku siiyay ardayda reer Somaliland, waxaana mar kaliya lagu war helay isagoo taagan magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool oo ka soo socdaalay magaalada London ee carriga Ingiriiska. Fariin qoraaleed ay u soo direen waxay ku wargeliyeen in lagala noqday dalku-galkii iyo deeqdii waxbarasho labadaba. Qoraalle uu ku baahiyey boggiisa Twitter ayaa waxa uu ku eedeeyay in arrintan ka dambayso wakiilka xafiiska Ingiriiska u joogta Somaliland Lisa Walker, wuxuuna yidhi: haddii waxay soo gaadhaan tolkay Dhulbahantow ha u raacdaan Lisa Walker. waa basaasad Hargeysa oo fadhida xukuumadda Britain, waa naagta iga xanibtay inaan ku noqdo UK, mas-uul ka ah xasuuqa Laascaanood. Maxkamad ayaan ku furi doonaa, ayuu ku soo gabagabeeyay Cabdiqani hadalkiisa. Tan iyo intii ay bilaabantay dagaalka ka socda magaalada Laascaanood ee u dhexeeya jabhadda SSC iyo sidoo kale ciidamada Somaliland, waxa isa soo taraysa saameynta ballaaran ee ku keentay waxbarashadii iyo sidoo kale isfahanka bulshadii oo qabyaaladdu hadda ay qanjaha joogsatay. Qof kastaana waxa uu samaynayaa sidii uu dadka deegaanada